بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان ardayda kala duwan ee xidhan dhinaca YouTube-ka aan technology iyo page-kan ku leenahay Facebook-ka waxa kale oo hadda la ka dhigo iminka aan ku soo kordhinay dhinaca TikTok-ka oo hadda la ka dhigo marka casharka dhameeyay kadib aan tusi doono account-ka saxda ah ee aan TikTok ku leenahay kadib account fara badan oo arkay oo runtii casharada aan technology la geliyay marka insha Allah casharka dhameeyna ka tusi doonaa maanta waxaan doonay la gaarsiiyo hadda la qoro meelaha la gaarsiin jiray cuslaa hadii alla ka dhigo waxaan maanta dhigi doonaa hadii la yiraahdo casharada ugu muhiimsan oo ku saabsan qaabka loo sameeyo hadii alla ka dhigo Apple ID-ga Apple ID-ga runtii marka la doonayo la sameeyo Apple ID-gu waa lacag Gmail hore inuu soo dhignay laakiin Apple ID-gu marka la doonayo la sameeyo Apple ID-gu waa lacag waxaynu markaa u baahanaa in si free ah aynu ku sameysano Apple ID Apple ID-guna waa account-ka uu security ahaan u isticmaalo waxa lagu magacaabo iPhone-isku mobilada iPhone-iska ay isticmaalaan ama iOS-ku ku shaqeeyo marka horta waxaan soo dejin doonaa halkan Google baan tagi doonaa programka inaga caawin doona waxa lagu magacaabo iTunes application-kaas ayaa inaga caawin doona hadii la ka dhigo dhinaca iyo waxa inaga caawin doonaa inaynu sameeyno Apple ID free inaynu sameeyno wala soo digi doonaa iTunes download markaan qorno Google ku qorno waa kan marka saa ugu dhufano waxaan ku dhufan doonaa hadii la ka dhigo qaybta ku taalo maxay aan hadda wax isticmaalay Windows hadda laakiin isticmaalso Windows 32 bida iyo 64 kan hoostadan hoostu digno waxaad heli kartaa hadii la ka dhigo suuqa isagoo Mac OS ku jira isagoo hadii la ka dhigo waad heli kartaa intaba waxaan hadii la ka dhigo hadaba sameyn doonaa insha Allah anigu waxaan la soo digi doonaa anigu kaygu waa bitkiis 64 download baan leeyahay download markaan saa u raahdo waxa halkan ka bilaabay uu soconayaa wax yar buu qaadan doonaa extend hadii uu jiro waxaan hadaba u baahan si application ka horta waynu u baahanay waxaan kale u baahanay Gmail waxaan sameeyay adeertan Gmail cusub oo lagu magacaabo waa ka duca qabi alle ayaan gmail.com baan u bixiyay kaasna insha Allah ku isticmaali doonaa Gmail-ka ayaan insha Allah u isticmaali doonaa waxaan sameyn doonaa hadaba iTunes-ka waa kan waa ka application marka ku shubato iTunes ku dhufan doonaa waa soo kicinaynaa saas oo soo kacaya waxaan tagi doonaa qaybta account-ka waxaan leenahay sign in halka Apple ID hore jira la geliyaa laakiin keen waa cusub waxa leenahay create a new Apple ID markaan hadda la ka dhigo sida u niraahno waayahay daaqadan markaan saa ugu soo baxdo aynu ku dhufanay maxay halka waxaanu gelin doonaa hadii la ka dhigo email-kii gelin doonaa Gmail-ka uu ku sameysnaa ayaan barta gelin doonaa oo aad caqabe alle @gmail.com halka password waxaad gelin doontaa password-ka cusub ee Apple ID-ga haddaad Gmail-kii hore aan gelisay password-kiisa wax dhib ku jira ma jiro anu password-kaas hadii la ka dhigo gelin doonaa waxaan gelin doonaa password-ka marka uu dhameeyo password-kaas waa maxay waa ismatch gareeyaa waxaan filayaa in ismatch gareeyo password-kaas waa ka wasta character ku kooban yahay ay ku jiraan number iyo abarkiis xarfo weyn xarfo yar yar xaggaad joogtaa hadda wax yar mushkilada runtii Soomaaliya address ma laha mushkilad waa Soomaaliya kaga iman doonta waxaan diisin doonaa United States halkaas waxaan saari doonaa si waddo leenahay halka marka saas oo saarno waxa leenahay continue daaqada waa laga gudbiyaa daaqad kale haday sax tahay عليه باسورد كأي حرف وين كتيرين وفهمتي كو عليا هالكا كو بصنّو بس يمكن كوجر أصفي عمله بصنّي هالكا أنا صح صار يا كونتينيو بالله طاقة وين يهجدني وحلينا محي فرستي نيمكا وحلينا صارنا خليه وحنسوين دور على من الوضيع واللقوم مقعابو عبدي قادر أيام سوين دور أحمد عبد القادر أحمد waxaan digin doonaa kan xilli u dhashay dhiiga maalinta loo yahay ayaa filaya xilli uu bay sigin doonaa dara ka dhigo 2003 uu ninka odayga ashaan filaya inta waxaan soo sameeyno questions-ka waa muhiim waana questions-ka looga baahan yahay inaad xifdido oo meel ku qorato hadhow haddaad password-ka Apple ID-ga iloobo lagama jabin karo company-gii mooyaane lacag culus ka qaadaya mooyaane lagama jabin karo marka ka digtoonaada marka waxaad gelin doontaa hadda la ka dhigo waxaad garanayso oo aad hubtad gelin doontaa marka questions-kaasi waa questions-ka xisad gareeya password-ka marka imika ku sheegaya maxay saaxiibkaaga hore dugsiga sare ayaan iska dooran doonaa waa magaciisu waa Jaawac baa iska leeyahay talahan meel baad qoran doontaa job dream-kaagu waa maxay waxaan leenahay waxaan qof uma ka dhigi doonaa waxaan ka dhigi doonaa ninka odayga wuxuu xiiseeyaa waan filayaa question 3 waxaan ka dhigi doonaa hadda la ka dhigo the name waxaan ka dhigi doonaa magaalada kula kulantay Burco
ka dhigi doonaa intaa markaan ku qorno runtii waa muhiim. intaa screenshot ba haddii la ka dhigo ka qaadi doontaa, meel baad dhigan doontaa. intaasi aad bay kugu muhiimtay. intaasi waa muhiimad weyn bay runtii ku leedahay. intaas waa hadhow waa inta kaa caawinaysa account-kaaga inaad reset garayso ama aad jibiso, kaa caawinaysa marka account-kaaga verify-giisa in la xaqiijiyo inaad adigii tahayna waa lagu weydiin doonaa jaamac iyo job dream-kaaga iyo waxaas oo lagu weydiin doonaa. intaa markaas waxaan leenahay continue, waad ka gudbi doontaa job dream. markaan intaa ka gudubno job dream ka qorno haddii la ka dhigo qorno magaaladii weedka kula kulantay daaqada ka gudbi doonaa. waxaa laynoo gudbi doonaa inta waa personal information-kii xaggii haddaba account-kii waa in lacagtii la bixiyaa. intaas waxaan leenahay hadda continue ka soco, aniga macluumaad ka buuxinay. marka lacagta maxaad ku bixinaysaa weli waxaan leenahay nan lacagta bixin mayno. hadda waxaan isticmaali doonaa adress kaga sheeg. markaa wadankiina adress ma laha, waxaan samayn doonaa google-kan tegi doonaa. google-ka markaan tagno halkaa waxaan kusoo qori doonaa fake address generator New York kala soo ahaan. fake address been samaysan doonaa oo randomly aan xulasho lahayn. markaa saabanka nagu soo compost-ka isticmaali doonaa address caadiya waa toos, waana address fake kaasna isticmaali doonaa. marka waad control cd soo koobiyey. waxaan tegi doonaa abradigi streetka halkaasaan dhigi doonaa. waxaan dhigi doonaa citieska waa maxay? waa magaalada citieska waxa weeyaan halkan cityga ka eeg waa magaalada. waxaan leenahay maxay u dhufo halkaagii citieskana. magaaladuna waa magaalo nooceeya? waa New York. kan New York wata sib code-keeduna waa ka control c soo qaado halkan soo dhig. halkaana waxaad udaysaa unity stateska sigida area code-ka waa halkaas waa muhiim, waa wadankaad joogto. marka area code-keena inaga waxa weeye 063. kan numberkayaan gelin doonaa. waxaan leenahay 4941564 baan leeyahay. waxaan leenahay continue. waxaa koor lagu diray ducaqabe alle oo gmail-kii ahaa. markaan tag gmail-ka waa kan inbox ku dhufo qaybta memory tag. maxaa laga soo dhacay? already verify waa xaqiijin. waxaan leenahay kaa ku dhufo control z tag. waxaan leenahay kaa soo koobiyey waka data verify xaqiiji oo hubi in account-kaas la sameeyey. oka marka waa lagu guuleystay, waa la sameeyey account-ka. waa service-dii waxaad ku isticmaali kartaa imika mobile Apple ID ahaan. waa Apple ID shaqeynaya, waad gashan kartaa marka inuu shaqeynaya si sax ah u shaqeynaya in kale maxaynu tijaabin karnaa? waa inuu ay cloud-kii shirkadda galaa. shirkadda Mac waa in ay cloud-keedii galaa. waa ka galay. waxaan samayn doonaa halkan tag. waxaan leenahay halkaa iCloud baan leeyahay, iCloud.com baan leeyahay ku dhufo. marka iCloud-ka waa inaan geliyaa haddii alla ka dhigo oo geli karaa. ducaqabayii soo koobiyey gmail-kiini waa ka ilakaasinku isticmaalayay waa kan isagana hadda soo baxaya. halkaa abradigi geli oo gmail-kaas aynu abradi ahaa. password-kiisuna waan garanayaa oo intan ahaa password-kiisiina intaasuu ahaa waan garanayaa. intaa markaas waxaad aragtaa inuu toos u galay. dhowr su-aalood baa layna weydiin doonaa. waa xaqiijinaya inaad adigii tahay. marka waxaan ku sheegayaa abradi security buu leeyahay, waan ognahay baa ka soco. wuxuu ku sheegayaa si aad u gasho inaad adigii tahay lagu xisay. waxaad job dream-kaaga noo sheeg. waxaynu soo dooran hore usoo aragnay doctor buu job dream-keenu ahaa. saaxiibkaaga hore jaamac baynu leenahay. waxaa leenahay continue ka soco. abradi security wanaga ka jawaabnay. halkan hawlo badan buu nala gelay wadanka. waxaan leenahay cancel baan iska leenahay. halkan waxaan leenahay wax upgrade uma baahnin baan leenahay. marka adigii heshiiskii shirkadda diiday waxaan leenahay agree. waxaan leenahay waa aqbalay. yar bay qaadan doontaa markaa inuu dashboard-kii ay geeyo iCloud-ka dashboard-ka yar markaa isticmaasha halkaa wax kusoo qori doonaa account-kii vayna ka find my account. waa inaad account-kaaga trace garayso oo baadho meesha joogo aad raadiso ayuu halkaa soo dhigi doonaa. runtii casharkaas waa cashar muhiima. waa nidaamka loo sameeyey Apple ID-yaga. runtii waana cashar runtii Apple ID-ga dee aad ka badagto inaad lacag bixiso oo aad paypass ku samayn karto haddii laga dhigo. halkaas insha Allah ku jin doonaa. waad mahadsantihiin. intaynaan runtii halkaa ka bixin waxaan deer tusi doonaa TikTok-ga account-ka cusub ayaan sameeyey. runtii ujeedkaan ka leenahay waa maxay? iyo ujeedkaan ka leenahay waxaan hadda sameynay account-ka cusub ee dhinaca TikTok-ga ah. waxaan ugu talagalnay runtii casharada googooska ee muhiimka inaan halkan
account-kii hore waanu iska masaxnay horenu isticmaali jirnay laakiin kan baan insha allahu toos ugu soo tubin doonaa cashara hakin oo doolar waa soo gelin doonaa bala qaadaya oo aynan hore youtube ugu jirin oo runtii way aqbalayaan qoradan oo youtube-ku naga diiday casharada hakinka oo dhan halkaan soo gelin doonaa casharo badan oo hakinka marka insha allahu waxaad gaadhsiisaa meesha cusraa la gaadhsiin jiray gaadhsiiya insha allahu waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.